السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada Nimco Beauty Lifestyle walaalayaal. maanta waxaan rabaa inaan sameeyo bur maxaa la dhahaa burkan yar ee macmacaanka ah oo waxaa la dhahaa bur sonkor maxaa la dhahaa af Soomaali maxaa lagu dhahaa bur sonkor. marka burkaasaan rabaa inaan maanta idinla sheer gareeyo sida loo sameeyo. marka waxaan halkan ku haystaa yeast oo hal qaade ah, halka waxaan ku haystaa butter, halka waxaan ku haystaa 2 koob oo bur ah, halka waxaan ku haystaa 2 qaado oo sonkor ah, halka waxaan ku haystaa caano. marka hadda saan u qasayo isla daawano insha Allah. marka ugu horeysa waxaan sameynayaa inaan caanaha iyo istiga isku daro. isku darayaa waa koob aan aad u buuxin, xogaa uu yaro weyn yahay laakiin half buu ahaa. marka waxaad sameynaysaa waad isku qasi istiga iyo caanaha, isku qasaysaa, isku qasto, xoog isugu qasaysaa waxoogaa labadan xoog baad isugu qasi. aniga waan jeclahay burkan sankarta ah, bur yaro kuskuusan oo macaan badan weeyaan. waan jeclahay mar walba waan samaystaa. marka waxaan rabaa inaan la sheergareeyo sida loo sameeyo. khiyaarta iga soo codsatay inaan maaragtay burkaas soo dubo soo sameeyo. markaad saa isugu walaaqdo waxaad sameynaysaa soo qaadanaynaa kan baan soo qaatay. waxaan rabaa inaan ku shubo burka halkan. waa 2 koob oo bura, 2 koob oo bura weeyaan, 2 koob oo bura weeyaan. sonkortaan soo qabanay, waan ku darayaa. sonkorta badan ma fiicna. waxaan soo qabanayaa butter, ku daray 2 qaado ku darsan kartaa butter. 2 qaado ku daraysaa. waxaad ku daraysaa oo kale waad ku daraysaa marka waxaan sameynaynaa hadda baking soda aan soo qaadanayaa waxaan soo qaadanayaa spoon baan soo qaadan. adiga hadda waxaan rabaa inaan ku daro waa half in la buuxiyo ma ahan, waa half spoon halfkeeda oo baking soda aan ku darayaa. aan ku daro wax yaroo salt aan ku darayaa. salt aan ku darayaa. saltigan ku darsanaynaa wax yariisa weeyaan. marka akhyaaray waan qasayaa. waxaan rabaa sida loo qaso. waxaan rabaa inaan qaso, gacanta ayaan la gelayaa. halkan waxaan ku haystaa caanihii iyo istigii. marka intan bas aan ku qasayaa.
بس أكون قصية داو حوعا أكو شوية ولاق يرير 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 واسو ولاقي خياري واسو هجاجينيا وأنا كشفت marka waxaan rabaa inaan soo qaso markaan soo qaso ayaan isku soo laabanaynaa insha Allah hay isku soo laabanay burkii waan soo hagaajiyay sidaan ku soo baxay burkii sidaan ku soo baxay waan soo hagaajiyay waa kaasa hadda xogaa adiga intuu kasoo faxfaxayo ama uu ka faxayo meel baan afkaan ka xidhayaa meel baan gelinayaa insha Allah waxaan suubinaynaa inaan bac ku xidho ama aan afka ka xidho markuu soo faxo waan isku soo laabanaynaa sida aan u sameynayo ina soo sheergaraynaya insha Allah عادي ما سوف فحياة تربس ونجد يا عادي معهم مركا أصلا سعننا وأسكو صلابنا إن شاء الله مركا وصافحه أسكو لا صلابنا خياري إن بركاني وبركان إن دحلا كدو ليلة ولبه دونت ودونت إن وبرش كل شيء waxaa doonto waa lagu yeeli kartaa marka waa saas walaalayaal waa isku soo laabanayna insha Allah marka uu soo faxo hal saac ka bacdi ama 40 daqiiqo meelahaas isku soo laabanayna walaalayaal insha Allah isku soo laabanayna Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isku soo noqod wanaagsan burkii yaraa ee kackaca ahaa sidaan ku soo baxay waxaan rabaa inaan idin tuso qaar baan soo cheese dhexda ka soo galiyay oo soo diyaarsaday marka waxaan rabaa inaan idin share gareeyo sida burka iyo bahashan dhexda ku gelinayo sida isticmaalayo waa cheese soo ma aragtid sheep's milk cheese weeyaan waa akhrisan kartaa waxaad ka heli kartaa xalaalada aad ka soo gadan kartaa Walmart oo kale waad ka gadan kartaa marka waan soo jarjaray wakaasa hadaad u baahan tihiin waxaan dhex gelgelinayaa maxaa la dhihi jiray kana waan soo jarjaray sidana u soo jarjaray yaryariis baan kasoo dhawo jeedin marka waxaan rabaa inaan roodhiga dhex geliyo oon googooyo marka saas ila socda burka intaas saasaad u goosan saasaad dhihi sama asadi daiso soo geynaya ku kale saa markaad dhahdo saasaad dhihi
laba xabo ama hal xabo intaad rabto taxgalnay dhammaadaan isla wadaynaa maadaama aan burka badi soo wada samaystay haddana waxaan rabaa inaan la sii shargareeyo sida aan usoo sameeyey waa aqyaare waan idiin soo sharaxay sidaan usoo xaashay iyo fartiin haddana waxaan rabaa cheese-ka sida dhexda looga gelinayo haddaad doonto laba xabo anu waaban badiyeyba ma ogtahay burkayga zaa'id baan mooday hal xabad u gashan laba adiga intaad rabto waa cheese cheese أنا هدان دانا ilmaha iga cunaya waan ku badsan karaa dib malahan cheese waa loo baahan yahay kaasaa dhihi kaasoo ma aragtay taas haysaa still waan sameynaynaa wax yar baan noo dhiman kastaan aan cheese badan aan soo jarjaray waxaana khasaari maayo dhib mala fridge-ka iska gelina laakiin aan intaan ka rabay waan ka samaystay saas weeyaan aad kaaga dhigdhiga saas si qurux badan buu u faxay because waan xashay hal xabo taad more cheese u baahan tahayna waad gashan kartaa hal xabo left hal xabo inoo dhigan hadda marka wakaas qayaarey waxaan dhahay كل سنة أنا سمعنا زمان سمعنا cheese كان قلقلينا يو عادي قال قسمي waxaad ka heli kartaa xalaalkaad ka soo gadan kartaa hadaad u baahan tahay mid xalaalkaad ka soo iibsan kartaa superstore-kaad ka iibsan kartaa kooskaad ka iib meesha doonta cheese ka helaysa cheese-ku waa isku mid cheesasku waa isku meel bay ka imaadaan waramaaya hadde kolley qofkii kolley iga waran waa og laakiin cheese-ku waa xalaal xoolana waa laga keenaa kaasaa nagu sii badanaya bahalkii dhamaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكو سنة قبل عكسة ولا عليا بركي يريلا انسو سميناي وحارات انا سريد يوم كله وحارات انا دبو بكا هذا يا رب cheese بعد احنا كده اريد اكله